Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kusoo dhawow channelka Waxgarad. Fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh. Barnaamijka maanta idiin hayno barnaamijyada hore uu ka duwan yahay. Barnaamijkan wuxuu la magac baxay Qosol oo Haquusan. Barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. Maalin kastoo Jimco ah bacdal khudban waxaad ka daawan kartaa channelka Waxgarad. Barnaamijka Qosol oo Haquusan waa barnaamij sheekooyin gaagaaban oo qosol ah. Fadlan si uusan kugu seegin channelka subscribe saar. haddana aan bilaabno sheekooyinkeena. Hadda ka hor madaxweynaha Soomaaliya, madaxweynaha Mareykanka, madaxweynaha Ruushka diyaarad isla raaceen. Kadib mid kasto in wadankiisa la dul maray uu sheegan oo uu gartay. Waxaa la weydiiyay ugu horreyn madaxweynaha Mareykanka see ku garatay in wadankaaga korkiisa diyaaradda marayso. Sheeko qosol ah leh waaya. Markaas wuxuu dhahay waxa ku gartay gacanta daaqad diyaaradda gacanta ka bixiyay waxaana taabtay daarihii dheeraa ee New York. Waa lagu qaatay ayaa la dhahay. waxaa ku soo arkay madaxweynaha Ruushka la weydiiyay asna see ku garatay. Wuxuu dhahay daaqad diyaaradda gacanta ka bixiyay waxaana isoo galay naacawdi iyo qabowgii Moscow. Waa loo sacbiyay ayaa la dhahay. Saaxiibkaa soo haray madaxweynaha Soomaaliya. Wuxuu soo istaagay daaqadda diyaaradda gacanta ka bixiyay saacadeeda isla markii laga furtay. Soomaali waa kana madaxweynaha xataa ku dayay. No. Dhageysto waa sheeko gaaban laba nin oo saaxiibay dhex martay. hadda ka hor waxaa la laba nin saaxiibo ah in muddo kala maqnaayeen maalin dambe jidkiis kaga hor yimaadeen way isku farxeen habi is siiyaan way isu wareysteen midaa wuxuu dhahay saaxiib ii waran kii kale wuxuu dhahay saaxiib nabad maasha Allah saaxiib kale uu soo bood wuxuu dhahay saaxiib aabe iiga waran isla markaa waxaa ku soo dhacday inuu aabiis mar hor dhintay oo is dhahay shaxda bedela camal wuxuu dhahay saaxiib aabe wali qabrigii mu ku jiraa uu soo istaagay saaxiibka shaxda uu fahmay wuxuu is dhahay ka waalan camal saaxiibka may saaxiib qabriga ku xugo u guurowtaayin No. waxaa Master Hinti Show. Waqti hore waxaa la madaxweynaha Soomaaliya wuxuu booqday dalka Shiinaha. Markaas wuxuu ku soo aaday madaxweynaha Shiinaha wiil u dhashay. Waa lagu casuumaaday waxaa la madaxweynaha Soomaaliya maadaama uu soo booqatay wiilkan magac u bixisida la rabaa. Saaxiibka tala ku cadaatano. Madaxuu xoqday wuu fakar cirku fiiris ku magacna manihin. kadib ilaa amarkiis asoo madax iska xoqana hal mar waxa ka imaatay hindhiso hatishu dhahno waa loo sacbiyay saaxiibka maasha Allah magac fiican oo bixisay Mr Hinti Show itaayin No. waxaa la sheekadan sheeko xigmad waaya waxaa la lahay nin hadda ka hor reer xamar wuxuu jeclaa inuu beer qoto beertan dhulka muusa fali karin sababta nin oday ahaa wuxuu maalin dambe message u diray wiilkiisa oo waxbarasho meel kale uu maqnaa wuxuu dhahay aabo hadaa maanta ila joogi lahayd camal calaacal ma aabo hadaa maanta ila joogi lahayd dhibka miis qabsaneen camal waa ay qodi lahayd wiilkii u soo jawaabay wuxuu dhahay aabo ha iskugu dhawaan dhulka anaa wax ku hoos geliyay isla markii maalinta ku xigtay booliska xaafadda imaadeen dhulkii qodeen way fageen wax way ka waayeen ka tageen saaxiibka message aabiis soo diray wuxuu dhahay aabahaygaan jeclaayo hadda dhulka waa lagu qoday beeraha ku beer camal saaxiibkaas wuxuu ka watano in wuxuu rabay ka shakiyaan hadhowna oo loo qodo No. dhageysto wiili gabar had ka hor is jeclaa maalin dambe gabadha iyo hooyadeedna way isku ekaayeen in shareerina qaadan jireen maalin dambe saaxiibka asoo luuq maraa waxaa ka hor imaatay maamadii wuxuu u maleeyay gabadhii uu jeclaayo u maleynay asoo salaamin xataa wuxuu horta kula soo booday naa horta maad igala hadashid duqdan hooyada ah imaba arki kartay uu taaniya maxay saas dhan iigu nacsan tahay xaas ha qaaday inaan habaaro ma si kale ma leh uu taaniya saaxiibka cabaar markuu caayo ku fardi baxay zaid markuu u fardi baxay haddana cabaar ayadoo u soo jawaabayno arkana wuxuu dhahay na maxay isu kuureysaa camal duqdi ma kaas waxanaajisay anoo inta ka joogay iyo dhibtay adoo la joogtid see noqonay camal maamadii soo boodano waxay dhahday eedo maxaa sidaas dhan igu habaareysaa oo kaa galafsaday saaxiibka hal mar biyo qabow lagu shubay sheekadii ku dhanaanaatay lagu hiyaaweynadeen wuxuu sameeyay garan waay maamadii haddana soo bood waxay dhahday waraana casiyo fulayga gabadha aad darteedii xaaskii siinaysid waa ku sii qaado had ka damban guriga ku shukaansan kartaa oo iimaan kartaa waana sababta ilaa hadda ninkii qol uu ugu xiran yahay
oo uu ku hayo ilaa hadda wuxuu ku hayaa saaxiibka wallaahi arina ay qabsatay afkeyga anaa maanta ceeb ku doontay no. fadlan igu caawi waxaad awoodo anna aan kugu caawiyo waxaan awoodo waad awoodaa inaad channelka subscribe dhahdo haddaad ka heshay videogan aad like saarto anna waan kugu caawin doonaa instagramkayga insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin